بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maalin wanaagsan runtii maanta waxay kamid tahay maalmaha shaqo ee aan u soo baxnay inaan hawl maalmeedkeena caadiga ah qabsano madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed anagoo fulinayna awaamirtii oo na furay ee ahayd u shaqaynta bulshada nugul iyo dhammaan shacabweynaha reer koonfur galbeed waxaan xafiiska madaxweynaha u imaanay inaan soo gudbino qorshe hawleedkii sanadkii la soo dhaafay waxyaabihii wasaaradda u qabsoomay iyo waxyaalihii aan isleenahay markaas gaab baa ka dhacay ama ma qabsoomin iyo caqabadihiina hor istaagsanaa inaan la wadaagno madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale sanadka cusub ee bilaabanayo waxyaalaha u qorsheysan wasaaradda beeraha iyo waraabka koonfur galbeed si aan runtii madaxweynahana ugu ogaado waajibaadkana saaran iyo shaqooyinka uu noo idmaday annagoo runtii ammaan gaar ah u ahayna madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo har iyo habeen u taagan inuu u shaqeeyo dadkiisa iyo deegaankiisa isagoo aad dareemi kartaan xaalado adag iyadoo ay jiraan in la xisaabtan wasiirada ah inuu u wacay oo leeyahay maxaa ku qabsoomay maxaa qabanaysa sanadka soo socdo maxaa kugu dhaca qabado qoysto maxaan kula qabtaa maxaan ku xalliyaa taasoo cadeen u ah in madaxweynuhu ballanqaadadii bulshada oo u ballanqaaday uu fulinayo maalinta ka dambeysana ay soo kordhayso runtii waxqabadka muuqda ee madaxweyne cabdicasiis iyo golihiisa wasiirada ay u dhaarteen una ballanqaadeen shacabweynaha reer koonfur galbeed inay gaarsiiyaan meesha ay taagan yihiin meelaan ahayn waana runtii shaqooyin lagu ammaani karo oo madaxweynaha si la mid ah wasiirada saaxiibaday ah iyo dhammaan golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyagoo gacmaha is haysta waxaan u rajaynayaa waqti wanaagsan waxaan raacinayaa dhammaan beeraleyda reer koonfur galbeed oo aan rabo inaan ku bogaadiyo arrimo taagan maadaama adduunyadu ay kala xiran tahay adduunku cunto la'aan ay ka dhacda laga baqaayo in dhammaan beeraleyda aan ku wacyigeliyo inay joojiyaan beerista sisinta sanadkan guga hadda bilaabanayo sisinta beerashadeeda inaan iska xakinno aanu ku bedelanno inaan beerano galley masago digir cuntada caadiga ee bini'aadanka uu cuno intaas waa inta badan mana laga maarmo marka waxaa leenahay beeraleyda guud ahaan reer koonfur galbeed saddexda gobol inay xoogga saaraan inay beertaan saddexdaas oo ah galleyda masagada iyo digirta iyo waxyaabaha la halmaalo cuntada caadiga ah marka sisinta lagu daalay ee dadku ay aad u wada beertaan sanadkan waxaan codsanaynaa ka wasaarad beer ahaan iyo ka dowlad ahaan in hakad la geliyo lana beerto cuntada iyadoo laga baqayo guud ahaan adduunka inay ka dhacdo cunto yari oo aan ognahay adduunka inuu kala go'an yahay taasna waxay naga tahay wacyigelin iyo dardaaran aan u soo jeedinayna beeraleyda guud ahaan waxaan u rajaynayaa guga inay ka faa'iidaystaan oo noqdo gug barwaaqo gu ay ku raystaan hadduu alla idmo ilaahina oo ka haayo ayaxa iyo balaayada iyo aafooyinka dabiiciga ah inuu ilaahay ka haayo waxaan u rajaynayaa wax soo saar wanaagsan inay noqdaan kuwiisa matabixiya guud ahaan Soomaaliya. Assalaamu calaykum waraxmatullah.